ururka horumarinta gobolada Sool iyo Cayn ee Dangarad ayaa deeq raashin gaarsiiyay deegaano ay ka mid yihiin Cadaybuur, Jidbaale iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Sool. deeqdan la gaarsiiyay 60 qoys oo kamid ah kuwa ugu liita ayaa waxa ka mahad celiyay odayaasha deegaanka deeqdan la gaarsiiyay. waynoo yimaadeen qoladan Dangarad iyo deeqdan ay wadaan waa u mahad celinayna Ilaahay baa mahad leh. ma hadda ka sokow markaanu hore u gudbo waxa wadanka ka jira Ilaahay uu baahideeda saari kara cid kale baahida saari kartaa ma jirto. waxaan leenahay marka qoladina reer Dangarad iyo wixii islaamiga ama muxuu ahaa macaawimo soo bixinayo idina xilbaa idin fuulay adag oo weyn oo ka bixi karin. waxaan leenahay annana Ilaahay abaarta naga soo furto amiin idinkana xilka idin saaran Allah idinka furto waa idin mahad celinayna Ilaahay baa mahad leh. annaguna waxa weeye waa deegaankan waa Cadaybuur ceelka la yiraahdo Cadaybuur waa tuulo cusub ha cusbaato abatinka aanu qabno waxa weeye xagga la saarood iyo xagga xudud labadaba una qabatay ma naga saaran laguma qaato tuulooyinka hareeraha laga xiga hadda hay'ado cusub baa maray namay soo maraan kuwa kaarar bixinaya kuwa laan qayr sheeganaya kuwa cid kala miis wada kuwa sheeganaya dhakhtarro iyo wax intaa wax aanu ka hayna haba yaraatee ma jirto aan ahayn Dangarad iyo deeqda jaaliyadu noo soo dirtay baanu aragnaa iyo hay'ad yar oo tii talaalka caruurta kiniinka yaryar jirtay intaas aanu ka haynaa waxa adduunka soconaya gobolka Sool oo dhan baanu dacweynaynaa. waxaanu dacweynaynaa Hargeysa waxaanu dacweynaynaa hay'adaha ceelka waxaad moodaa inuu yahay Puntland ma xukunto oo Somaliland ma xukunto oo Sool ma xukumo oo Xudud ma xukunto meel ay kaga tiriyeen ceelkaas meel dadka uu kaga tirsan yahay gobolka Sool lama yaqaano. taas weeyaan waxaan leenahay wixii ay qusayso waanu idin sheegnay ma indhaliin ma aqli liin ma ilbaxnimo liin caalamkoo dhan baan la hadli karaa waa eebaysan yihiin wixii gobolka Sool maamula iyo hay'adaha hoos yimaada xagga yaga ceelka Cadaybuur iyo Jidbaale labadaba waa ka eebaysan yihiin oo hol bay ka eebaysan yihiin oo waxay ka eebaysan yihiin intii la siman oo dhan aagan marka la tiriyo waxa ku jira 9 ceel oo degaana Carbaris waa ceel Tuursubag waa ceel Dabardalool waa ceel intaa wax soo gaara haba yaraatee oo lagu muxuu oo hay'adaha oo adduunka ka socda ma haynaa. sidaa awgeed waanu idin sheegnay waxaanu Ilaahay ka baryaynaa wixiina waxba nooga sokeeyay Ilaahay iyo deeqsa nooga sokeeyay Ilaahay deeqda uuna siiyo qoladiina muxuu noo timo waa mahadsantiin. raashinka yar ee hadii la ku raado raashinka deeqda aad meesha keenteen waxa weeyaan dadkan waxba wada cunaa ma kala cuno 26 qoys aad ugu soo tala gasheen waxa uu heliya 15 geel oo kadin oo cidla fariistaa joogayeen oo geel jira ma tirsan qoladina Dangaradna meeda soo tirisay jawaabtu waa meeda soo tirin okay hadday sida oday wadi sheegay annaga haddii aanu nahay deegaankan Cadaybuur dadka aanu ku joognaa ee muuqaal inta gudaha ka dhisan idinba waa aragtaan daar iyo aqalba laakiin dad badan oo markii hore xoolo soo geliyay oo inta tirada 40 qoys aan sheegay iyo geelooda oo dheer baa dugsiyada noo wada joogo gacala oo isla wada dhashay oo wax wada cun leh ilaa buurta ilaa iyo Carbarisa ka soo gasheen bay ay waran yihiin mid walba maalintii hore meesha xoolaha keenay waa kala dhaqaaq ilaahay wuxuu wadana u socon waayay dabeedna wuxuu leeyahay halkan deentay ku dhamaanayso joog baad iyo biyo iyo mid walba dee ilaahay dartii uu baahan yahay. annagana qolyahan jaariyadaha ee gudiyaha macnaha jaariyadaha gudaha xudun hadday tahay degmadana nooma iman gobolka hadday tahayna nooma iman annaga wax noo yimi ninka ina shaqale ilaahay tiisa lagama diree yaa maalin bood biyaa noo keenay maalin Dangarad maalinta booda biyaha ee macaan wallahi midaan indhaha ku kala qaaday eelka jirnaan waa milix arwada waxa weeyaan milixda waa cad buu ka rawaay harka bay tiqla waa biyo dhanaan marka raashinka lagu daro wuxuu noqonayaa milix
qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ururka dangarad ayaa ka warbixiyay habka loo qaybiyay iyo deegaanada ay gaarsiiyeen iyagoo ugu baaqay bulshada deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn inay la gaadhaan kaalmooyin degdeg ah dhammaan reer Cadaybuur oo ugu horeeyo qaar bulaale iyo oday Abshir salaan kadib waxaan soo gaarnay deegaanka Cadaybuur taariikhdu markay ku beegneed 2 bishii 3aad 2017 waxaan u wadnay deeq ay soo gaarsiiyeen walaaladood reer dangarad markaan leeyahay waa isla garanaynaa oo waxa weeye dadkii deegaamada u dhashay oo kala jira daafaha dunida sidoo kale waxay ku soo wareejiyeen ama ugu soo hagaajiyeen deeqdan dangarada joogta deegaamadii ama gudaha ururka reer dangarad waxaan soo gaarsiinay deeq dhan 26 qoys alaabtoodii oo ka kooban bur bariis sonkor caleen iyo saliid waad aragtaan waxaan u dhignay qoys kasta alaabtiisii warbixinta ay noo sheegeen waxa ku nool halkan 45 qoys marka sida isku deeqsiinayaan gaarsiinayaan odayaasha ku wareejinayo garanaya waxaan u qaybinaynaa qoysaska intii jooga intii kalena waxay degan tahay oo joogta deegaamadan ku heeran marka kulli mahadcelintooda iyo mahadnaq bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa sallallahu wasallam wa ba'd waxaan joognaa goob kamid ah goobaha ay digto beeshu waxaan wadnaa caawimo ilaahay baa caawimo badan ay soo dhiibeen jaaliyada reer dangarad ee ku nool dibadiisa oo soo kiisheen dangarada joogta gudaha hadalku ma badna laba kalmadood ma soo koobaya mar waxaan u mahadcelinayaa walaalaha muxsiniinta ah ee walaalahood soo xusay waqtigan adag marka labaadna waxaan la dardaarmayaa dadka ku nool reer Cadaybuur waqti adag baa Xamsa Cabdiraxmaan Axmed Xamsa Darwiish telefishinka caalamiga ee Kalson لا سعنود